kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan halkani waa dalmar media ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku wareysanayno Sahra Naaleeye oo ah gabar u oleysa xuquuqda haweenka. Sahra marka hore ku soo dhawow dalmar media su'aasha ugu horeysa aan ku weydiinayo waxa ay tahay sideedaba dhaqanka Soomaalida ma yahay mid u daran haweenka. marka hore waa mahadsantahay maxamed afgooye iyo gaar ahaan bahda dalmar casumadan maanta ay casunteen ama fursadan ay siideen gaar ahaan arrin muhiim ah oo looga hadlayo haweenka Soomaaliyeed aad ayaan ugu faraxsanahay. haddaan u soo noqdo su'aashaadii oo ahayd haweenka Soomaaliyeed ma u daran yahay dhaqanka waxaan dhahi lahaa aniga uma darna laakiin waxay ku xiran tahay hadba si loo isticmaalo. sababtoo ah Soomaalida dhaqan ahaan waxaan u leenahay in ay sharafto macnaa muxuu ahay gabdhaha inay ilaaliso macnaa xuquuqdooda dhaqan ahaan macnaa gabdhaha macnaa ama haweenka guud ahaan waxaan tusaale kaasi karaa lacala waxaan qabnaa muxuu ahay markii gabadha Soomaaliyeed uu ninkeeda garaaco ama uu dilo dadka Soomaaliyeed runtii ama qoyskeeda waxay dhahaan mahmahbaa jirta macnaa dhaqankeeda leedahay maahane dhiigeeda ma lihid taas waxay ku tusaysaa meesha ay ka taagan tahay Soomaalida macnaa muxuu gabdhahooda inaan ixtiraamka iyo inaan macnaa la bahdili karin. Sahro haweenka markasta way cawdaan oo dhibaato ay ka sheegtaan dhibaatadaasi loo geysanayo ma tahay mid badan mise iyaga ayaa ka badbadinaya. والله marka ay cawanayaan ama macnaa ama ay haweenka ay dhibaato sheeganayaan waxay ayaga ka badbadinayaan ma aha waa wax ay taaftay kuleyba waxaan jeclaan lahay inaad maaragtay dhibaatadaas aan hal aan u fiirino tusaale ahaan gabadha yarta Soomaalida gabadha iyo wiilka koritaankooda waa kala duwan yihiin macnaa waxaan ka wadaa wiilka waxa loo barbaariyaa in uu noqon doono macnaa nin raga waryaa iska dhig inuu macnaa waxbarashada uu ku dadaalo ayaa loo tixgeliyaa runtii gabadhana muxuu ahaaye dhaqan ahaan iyadana waxa waaye inay hooyadeed ay caawinto muxuu ahaaye hooyanimadii loo sii diyaariyo macnaa marka hore ayayba kow ay kala duwan yihiin annaga dad muslim ha ayaan nahay markii quraanka aad u fiiridid ama qofka dadka wax bartay ama quraankeena bartay haweenka aad ayuu macnaa ay u ixtiraama aayada badan ayaa ku soo degay laakiin sidaa markii horeba ku sheegaba ficilka dadka ayaa marmar waxa ka badiyay muxuu ahaaye dhaqankii dadka qaarkii waxay aaminsan yihiin in haweenka iyaga laftigooda ay qayb ku leeyihiin dhibaatada oo ay isliidaan adigu marka arintaasi sidee u aragtaa waa jirtaa taas waa su'aal oo meesha ku jirta muxuu ahaay maxamed laakiin waxa waaye hadba siday arinta ay ku xiran tahay waxaa jira gabdho badan oo mutacalimiin oo wax bartay haddii gabadhii mutacallimada ahayd ay gabadhii kale wax u sheegto waxay leedahay yaa maanta casharkaas bixinaya haween maxay sheegaysaa way dhici kartaa taas laakiin taasna waxa macnaa ay sal ku haysaa koritaankii aan ku sheegay iyo barbaarintii aan ku sheegay oo haweenka markii horeba la liiday oo la yiriba haweenaad tahay marka aniga waxa macnaa aan dhihi lahay in macnaa muxuu ahay haweenka ruuxooda ay ismaqlaan ay macnaa muxuu ahaa ayaga hadayna macnaa is empower gareynin ama ayaga hadayna is dhisin yaa kaloo dhisayo dhisidaas waxaan ka wadaa haweenka waxa waaye waa hooyadii guriga waa hooyadii qoyska waa hooyadii macnaa bulshada macnaa waxa waa inay macnaa soo barbaaridaa lacala tusaale ayaan ku siinayaa oo isliidkaas hadda isoo xasuusiyay qof ayaa muxuu bixinayaa cashar oo muxaadaro ah oo diin ku saabsan haween ayay ahayd su'aalaad qaar dad kamid ah ayaa su'aalaadkii weydiiyay waxay dhaheen muxuu ahaa jawaabtii laga helay waxay ahayd sheekh hebel hal la weydiiyay su'aashaasi macnaa qoftaani macnaa ma ka jawaabayso macnaa waxa meeshaas ku cad haweenka naftirkooda inayna is aaminsanayn in qofkan haweenka ah inay macnaa ay wadaadad noqon karto inay macnaa sharciyo aan yaqaan noqon karto inay wax kasta noqon karto laakiin kaligood isma liidaane systemka dhan ayaa liita macnaa iyo dhaqankii iyo wixii oo kale hadda tusaale waxaan ku soo qaadayaa dawladda Soomaaliyeed fiiri waxaa jira maalinkaas waxaa la magacaabaa wasiiro annaga waxaana la siiyaa wasiir la yiraahdo wasiirka haweenka iyo qoyska
waxaa jira dad badan oo wax bartay oo muxuu ahaayey ama economy bartay sharci yaqaana dhaqaale yaqaana military yaqaana wax kasta soo bartay maad arkaysid qof haweenaho wasiirkii laga dhiga maaliyadda maxay u dhici weysay waa wax system oo waxaan jira oo soo jireen ah macnaha haweenka kaliya isma liidaane macnaha dhaqankii ayaa ka weyn wixii oo dhan ayaa isliida sahra dad badan ayaa aaminsan ama rumaysan in dadku u leeyahay xuquuqda haweenka ay gadaal ka riixayaan wadamada reer galbeedka oo iyagu aan waxba kala socon ama ixtiraam aan siin dhaqanka iyo diinta ay leeyihiin dadka Soomaalida arintaasi ma runba waa su'aal meesha ku jirta muxuu ahaay arintaas waa jirtaa laakiin ani ahaan shakhsi ahaan ma aaminsanin sababtoo gaar ahaan haddaan aan u soo leexdo xuquuqda waxaan tusaale kaaga soo qaadanayaa barnaamijkan gudniinka oo aan muddo aniga ku dhex jiray Soomaaliya dhaqdhaqaaqiisa waxaa laga bilaabay 86 waxaana bilaabay haweenka Soomaaliyeed 88 international conference oo shir caalami ah oo lagu qabtay magaalada Muqdisho yaa qabtay arrimahan gudniinka ayuu ku saabsanay tusaale ahaan Soomaalida ayaa bilowday marka waxa ma waagaas la bilaabo waa 23 sano ka hor marka wax macnaa waxa way gabdhihii Soomaaliyeed ama haweenkii Soomaaliyeed ama muxuu ahaa dawladii jirtay ama shacbigii ay u wada kaceen markaasi laakiin wax anaga gadaalna looga yimid ma aha laakiin waa wax luqad la iska barta oo markiiba qof talaabo qaato oo arintiisa oo ka hadlo la yiraahdo lacala muxuu ahaaye waxa gadaalkaas soo reexaya dad cadaan ah taasna aniga ma aaminsana runtii hadda waxaad soo hadal qaaday arinta gudniinka muddo badan waad u oleysay marka arintaasi xagee bay ku maraysaa wallahi hawshaas waxaan jeclahay marka hore inaan taariikh ahaan aan u fiiriyo intaan Holland aan u soo noqonin anaga ahaan gaar ahaan aniga waxaan ka shaqeynay wasaaradda waxbarashada qaybta waxbarashada haweenka ah qaybtaas ayaa bilowday arintan runtii muxuu ahaayay markaas ayaana ku baraarugna runtii waxaana shaqo la bilaawno ururka haweenka Soomaaliyeed oo waqtigaasi jiray wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxbarashada saas ayaan horta aniga aan ku soo galay inkastoo dad badan waagaas ay dhaheen macnaa anaga ma galeen oo wax macnaa waxay ahayd oo laga xishoonayo inaan macnaa arintan maadaama ay ahayd taabuu taas ayaan horta aniga aan taariikh ahaan aan ku soo galay waa la yimid halkan ayaan nimid halkan waxa waay problemkeeni boorsooyinkeena aan ku wadanay waa la nimid sidii ayaa meeshii dhibaatadii dad dhaqaatiir oo arintan ka warqabin ayay ula kulantay annaga marka waxaan macnaa muxuu ahaayay aan sameynay wadankan Holland kambeynyo badan oo arintaas ku saabsan waxaana moodaa markaan aan hadda ku soo gaabiyo dadku way kala yihiin umad badan runtii oo garawsata way jirtaa dhibaatooyinka ay arintan ay leedahay waalidiin badan oo gabdhahoodii gudin macnaa way jirtaa inkastoo moodid in macnaa muxuu ahaayay ay weli ay jiraan dad arintan wada gaar ahaan nasiib darro lagu xiro diinta macnaa muxuu ahaay laakiin inta badan dadku waxaa moodaa inay arintani ay fikrad ka qaateen ay iska badaayaan ugu dambeystii goormaad u malaynaysaa in qof dumar ah ay madaxweyne ama ra'iisul wasaare ka noqon doonto Soomaaliya way adag tahay macnaa waqtigan xaadirka ah iyo waqtiga dhowba waxaan ka wadaa ilaa 5 sano iyo meelahaas inay haween Soomaaliyeed loo doorto ra'iisul wasaare iyo madaxweyne laakiin ma dhahayo ma noqonayso ra'iisul wasaare ma noqonayso madaxweyne waan hubaa haddii Ilaahay yiraahdo haddii shacbiga u bislaado macnaa ummadda Soomaaliyeed in aan heli doono muxuu ahaayay sida madaxweynaha Liberia gabar Soomaaliyeed oo soo sharaxda ama ra'iisul wasaare ahaan ama madaxweyne ahaan mustaqbalka waayo Liberia oo intaas dagaal ku jirtaba waxa maanta u taliyay muxuu ahaayay madaxweyne oo haween ah waxay ku xiran tahay hadba shacbiga Soomaaliyeed sida ay u arkaan waxaana hubaa aniga in ay soo bixi doonaan gabdho Soomaaliyeed oo arinta madaxweynenimada ama ra'iisul wasaarenimada mustaqbalka u tartamo aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinaynaa Sahro barnaamijkeena gaarkaana maanta waa naga intaasi